ugu horreyn dhammaantiin ba aad baan idiin salaamay idam alle muuqaalkan waxaan kula wadaagi doonaa qaabka loo sameeyo full branding ama branding dhammaystiran brandkan ama loogadan aan dhisi doonaay nooceedu wuxuu noqonayaa waa Victoria logo ama symbol logo sidaa awgeed loogadani ama brandkan wuxuu ka shaqaynayaa waa shirkad lagu talagalay beeraha ama agro industry sidaa awgeed sida inooga muuqatay caleemahan ayaan kusoo xadhi doonaa qaybtan ugu horeysay marka waa main logadii qaybtan ku xigtay waa logo variationkii qaybta ku xigta waa backgroundski ama waa logo waxa loo yaqaano bottomski qaybtan ku xigtay waa logo concepti oo conceptiga logada xambaarsan tahay qaybtani waxay tilmaamaysaa labadan caleem in baynu uga soo gaabsanay qaybtana waxay tilmaami doontaa caleenta sidaa awgeed waa letter icon waxaa leeyahay leaf icon weeyaan qaybta markaan ka nimaadnona waxa weeyaan waa guidelineskii aan ugu talagalnay inaan ku sameyno ama waxa weeye waa guidelinekii inta markaan ka nimaadno qaybtani waa logo opacitygeedii qaybtani waa logo spacekii id cardkii mockupkii sidoo kale facebook coverkii iyo color paletkii iyo waxa weeyaan app iconkii intaas ayaynu brandkeena ku dhisi doonaa hadduu alla idmo ugu horreyn waxaan soo furan doonaa marka softwareka illustrator markaan soo furto qaybtan waxaan ku dhufan doonaa halkay ku qoran tahay create a new project new file ayaad ku dhufan doontaa waxaad tegi doontaa qaybta ay ku qoran tahay print waxaad cugan doontaa oo dooran doontaa A4 qaybtana waa inay centimeter aad ka doorataa centimeter markaad ka dooratid halkan ayaad waxaad siin doontaa waxa weeyaan orientationka waxaad siin doontaa marka landscape ayaad ka dhigi doontaa landscape markaad ka dhigtid waad ka tegi doontaa halkan waxaad loo bixi doontaa full waxaan leenahay branding okay inta markaan ka nimaadno qaybtan xaggan adiga saasay ku noqon doontaa advanced option baad ku dhufan doontaa markaad ku dhufatid qaybtan waxaad kasii dooran doontaa RGB color halkan waxaad ka dhigi doontaa resolutionka waxaan ka dhigi doonaa 300 oo ppi deetana defaultigaas intaan defaultigeeda diin doontaa create ayaad ku dhufan doontaa weeyaan waxaan kuu soo baxaysaa marka waxa loo yaqaano documentigii markuu kuu soo baxo qaybta ugu horeysa aan tegi doonaa waxa weeye waa qaybtan toolboxka oo dhanka bidixda xigta toolboxka markaan tagno waxaan kasoo dooran doonaa qaybta lightiga right click ayaa siin doontaa waxaad dooran doontaa marka qaybta ay ku qoran tahay ellipse tool markaad ku dhufatid qaybtan markaad click leedahay halkaa waxaad dooran doontaa 12 centimeter qaybtan labaadna waxaad dooran doontaa 12 centimeter width iyo height ba cabirkeedu wuxuu noqon doonaa 12 centimeter midkiiba waayahay okay baan ku dhufan doonaa waxay noo samaysanaan doonaa qaybtan waayahay qaybtan markay saa eclipse-kan inoo soo galo waxaan tegi doonaa qaybtiisa waxaan ka dhigi doonaa no color number si doonaa qaybtana strogiisana wankaasiin u diisan doonaa way qaybtan markaan ku dhufano waxaan tegi doonaa way selection tool deetana waxaan dhigin doonaa centerka way qaybtaas centerkan ku beegan centerka markaan ku beego isla waxaan dib ugu noqonayaa waxa weeye ellipse toolkii haddana click baan qaybtan siinaya click markaan siiyo qaybtaana waxaan ka dhigi doonaa 2.5 centimeter qaybtan waxaan leeyahay 2.5 centimeter labadii qayboodba intaasan siiyey okay baan siinaya marka way okay markaan siiyo labadanba waa isku halayd garanaya waxaan leeyahay alignment ayaan tegi doonaa halka align ay ku qoran tahay deetana waxaan leeyahay center deetana halkan waxaan leeyahay center labadaba centerkaas laga soo muujinaya marka centerka laga soo muujiyo waxaan rabaa inaan badsado san u badsado waxaan tegi doonaa qaybtan ay ku qoran tahay blending option ama blending ayaad ku dhufan doontaa blending markaad ku dhufatid isaga double click siinaysaa blendingkii waxaad ka dooran doontaa smooth colorka waad ka tegi doontaa qaybta rowgaad ku dhufan specified steps ayaad ku dhufan doontaa marka halkaa waxaan leenahay waxaad nooga 6 bayn ka dhigi doonaa 6 step deetana okay baan siin doonaa qaybtaasaad ku dhufan doontaa halkaa markuu midabkaasi uu noqdo madow clicksi qaybtanna clicksi sidaa awgeed waxaa kuu samaysmaya way haleymanka badan ayaa kuu samaysmaysa laynkan waxaan u badsanayaa waxaan geynan doonaa dhanka bidixda ayaan geynayaa isaga waxaan leeyahay control plus p mid labaad ayaan ka samaysanaya way kan labaad aan ka samaystay isagana waa tegaya geeskaas halkaasaan geynaya waayo labadooda waa isku halaad garanaya waxaan leeyahay labadoodaba qaybta way labadoodaba santa saas ugu beegnaadeen okay saas isugu beegan yihiin waxaan leeyahay labadoodaba hoos soo dhig xaggan hoose ayaan keenaya mid labaad ayaan kasii samaysanaya kanaan copy garaynaya control plus v ayaan leeyahay deetana isagana kor baan u qaadi halkaas ayaan isaga beegaya waayay si ayna isugu beegan yihiin control plus ayaan ku dhufanaya oo soo dhaweynaya
si aan u ogaado inay isleeg yihiin. Okay, qaybahaas aan u ogaado waxaan dooran doonaa Ctrl plus way ayaan ku dhufan doonaa. Deetana hadda qaybahaas aan isku simin doonaa. Kan waa soo qaaday xaggan aan geynayaa. Okay, hoos baad u soo dhigi doontaa. I think hadda inuu isku siman yahay oo isleeg yahay. Deetana minus un baan leeyahay. Ctrl way dib ugu celin doonaa iyo hadda labadiiba way siman yihiin. Intanba waxaan samayn doonaa markaa waxaan ka soo dhigi doonaa object. Waxaan tegi doonaa qaybta objectiga waxaan leeyahay expand ayaan ku samayn doonaa. Deetana waxaa leeyahay object baa laga dhigi doonaa, fill baa loo samayn doonaa, stroke baa loo samayn doonaa. Intaba okay baan leeyahay, intaba igu samee. Inta marka la igu sameeyo waa yahay saasan kor ba centerkaasaan geysanaya. Centerka markaan geysto waa soo dhaweynayaa. Waa yahay haddaynu eegno logo conceptigi baan tegi doonaa. Way conceptigu waa kan sidan buu dhisan yahay. Okay, qaybta markaan saa u sameeyno waxaan tegi doonaa Allahu musta'aanu kariim dhamaantoodba saasaan u highlight gareynaya ama Ctrl plus A ayaad ku dhufan kartaa. Inta markaad ku dhufatid waxaad tegi doontaa qaybtan ay ku qoran tahay shape builder. Shape builder kaasaad ku dhufan doontaa. Midabkiisa waxaad leedahay waxaad ii doortaa midabkiisa madowga ii door. Waa yahay qaybta markaan eegno line-ka weyn ka tegi doonaa. Way line-ka labada ayaan ka bilaabi. Way waxaan ka tegi doonaa line-kan, line-kaasaan ka bilaabi doonaa marka halkaas ayaan ka bilaabi. Waad socodsiin. Saasaan u socodsiin. Okay, waa wadi. Waa line-kaasaan ku dhamaanaya. Si la mid ah qaybtana isagana waxaan ka bilaabi doonaa line-kaasaan ka bilaabi waa socodsiin. Way hadda waxaan eegi doonaa labadii inay siman yihiin. Waxaan filayaa labadii inay si toos ah u siman yihiin. Sabab ogaado inay siman yihiin waxaan dooran doonaa Ctrl plus R sida awgeed halkaa waxaan soo furan doonaa lineska ama guideline-ka. Hadda waxay ka dhigan tahay way siman yihiin. Okay, qaybtaas markaas ay ugu siman tahay kanaan ku dhufanaya marka waxaan tegi doonaa qaybta 1 way qaybta 1 tool ayaad ku dhufan doontaa oo ugu sareysata ku xigta. Way 1 toolka markaan ku dhufto waxaan dooran doonaa inta madowga ah. Click baan ku dhufan kan, kana waxaan ku dhufanayaa, click baan ku dhufanaya. Waxaan tegi doonaa edit, deetana waxaan dooran doonaa copy. Deetana selection toolka ayaan dib ugu noqonayaa. Minus baan leeyahay, Ctrl plus minus. Inta markaan siiyo way haddana minus baan leeyahay. Kanaan sida u qaadaya waxaan leeyahay halkan aan dhigaya marka. Halkaas ayaan iska dhigaya maadaama aan mar labaad aynu u baahanayno. Waa yahay inta markaan siiyo waa yahay rulerkana waa iska xidhi. Halkaasaan ku baasti gareysanaya intii aan soo copy gareystay. Baasti ayaan leeyahay. Front ayaan siinaya marka. Isagii ayaa halkaa lagu baasti gareynaya. Waa isagii marka lagu baasti gareeyo kanaan ku dhufanaya waxaan leeyahay Ctrl plus C, Ctrl plus V. Isaan copy gareysanaya. Waxaan tegi doonaa centerkaasaan dhigaya. Waa toosinaya marka. Qaybta centigi saasaan toosinaya. Waa yahay. Hadda saas igu toosin yahay. Okay, resizing baan sameynaya siskiisa soo yaraanay. Maybe intaasaan u daynaya. Waa inta markaan u daayo sida halka inooga muuqatay waa fill dhammaystiran isagu. Ka fiilkii dhammaystirnaa ayaan ka soo dhiganaya. Saan fill uga soo dhigto isagaan highlight gareynaya. Markaan highlight gareeyo waxaan dooran doonaa qaybtii shape builder-kii ayaad ku dhufan. Deetana waxaad dooran doontaa dhexdaas madow. Qaybtana waxay leedahay isku dar. Deetana halkaa ayuu ka dhigi doonaa one object ayuu ka dhigi doonaa hoos baan u soo dhigi. Intaasaan u daynaya. Inta markaan u daayo waxaan booqan doonaa waxaan dooran doonaa website-ka loo yaqaano color palette-ka. Waa yahay. Way website-kaas ayaad booqanaysaa. Way website-ka markaad booqatid saas uu kugu soo bixi doonaa. Deetana waxaad dooran doontaa halkay ku qoran tahay explore. Okay. Waa yahay halkan ayaynu markaa ogaan doonaa midabada aan isticmaali doono. Kulley maadaama uu ka shaqeynayo agriculture ama beero uu yahay midabkan isticmaali doonaa waa cagaar. Laakiin cagaarkii baa gradient u baahan, isku dar u baahan. Marka halkan ayaynu ka ogaan doonaa midabada haba midabka ugu wanaagsan. Oy. Aan isticmaali doonaa labada midab, midabka iyo midabkan. Kaasaan soo copy gareysanaya. Way qaybtan ku dhufan doonaa.
waxaan siin doonaa stroke baa ku jira, stroke waa kasoo saari doonaa, marka stroke uma baahni. Double click ayaan siinayaa kan, deetana control plus v ayaan leeyahay kii aan koobiga ku haystay. Kana si lamid ah stroke baa ku jira, stroke we no need. Wankaa soo tirtir, halkana ku dhufo double click c, isagana control plus v c. Okay, qaybta saas ay nagu samaysan tahay. Waxaan tegi doonaa qaybta labaad. Kaas ayaan soo qaadan doonaa marka. Waayahay kalarka weeye kalarkaan rabnaa. Qaybtan aan tegi doonaa isagana double click ayaan siinayaa. Isaguna double click baan ku dhufan doonaa, control plus v ayaan leeyahay. Okay, waan dooran doonaa marka. Isaga si halka idinka muuqataba wuxuu leeyahay qaybta wuxuu leeyahay stroke suu leeyahay, stroke marka kasoo tirtir. Stroke markaan kasoo tirtiro saas way marka loogadii inoogu samaysan tahay. Loogadii markay saa inoogu samaysan tahay waxaynu soo xawlaynaa fontiga, xaggana tegi doontaa. Fontigan isticmaali doonaa, xaggan fontigaad ku dhufan. Fontigan isticmaali doonaa waa fontiga loo yaqaano Arbiter. Inkasaad markaa dhammaantiinba waad select garaynaysaa. Kad select gareysid waxaad dooran doontaa install. Deetana saas uu kugu install garay. Automation wuxuu kugu geli doonaa waxa weeye qaybtii character-ka waxa weeye illustrator-ka. Markaa uu inoo soo gasho fartaas inoo soo xawlanto, kanaan kor u qaadi waxaan leeyahay kor baan u qaadi, halkan aan dhigi doonaa marka tiidan aan ku dhufan doonaa, tii baan markaa siin doonaa. Qoraalku wuu yaryar yahay, control shift plus created ayaan ku soo weynaysiisan doonaa. Inta markaan ku soo weynaysiisto waxaan la bixi doonaa way midab same. Okay, inta markaan siiyo halkan waxaan kasoo dooran doonaa party Arbiter oo extra ball ah ayaan dooran doonaa. Farta waxaan leeyahay character ayaan ku dhufan, farta si lagu roonaysiiyo oo far abarkiisa laga dhigo. Way inta markaan sameeyo qaabkaas ay ku dhan tahay. Qaybtan tigi doonaa waxaan tigi doonaa align ayaa dooran doontaa, waxaa leedahay farta centerka kasoo muuji. Way centerku markaas u dhigi doonaa. Way inta waxaan leenahay markaa midabkan ayaan ku dabiqi doonaa. Waxaan tegi doonaa eyedropper-ka, deetana waxaan dooran doonaa midabka. Waayahay isagun baan koobi garaynayaa, kanun baan koobi leeyahay, hoos baan u dhigi. Kanun baan halay control plus c, control plus v ayaan siinayaa marka. Deetana isagan hoos soo dhigayaa. Halkan ka bedeli doonaa waxaan leeyahay agro industrial. Okay, deetana waa soo yaraynaya isaga waa yaraynaya. Fartana waxaan ka dhigi doonaa waayahay fartana boolkaasaan ka dhigi. Boolka markaan ka dhigay kalena waa extra ball. Deetana waxaan leeyahay midabkaad siinaysaa in ha noqdo midabkan ha noqdo. Okay, marka saasa lagu generate garanaya. Waxaan leeyahay labadan baa furteeda weyne centerka soo muuqata. Sidaa awgeed qaybtii koobaad saasaynu sameynay. Kan haddaynu isagana grouper ka dhigno, grouper baan leenahay ka dhig. Grouper markaan ka dhigno waxaan leenahay waxaad ka soo muujisaa isagana. Way isagana waxaan leenahay qaybta centerkood inuu yaala korun baan u yar qaadi. Way loogada markaa saasay qaybtii koobaad inoogu samaysan tahay. Waxaad tegi doontaa file baad tegi doontaa, deetana waxaad dooran doontaa halkii qoranta export, deetana waxaad dooran doontaa export screen. Way qaybta all baad ku dhufan doontaa, all baad ku dhufan. Deetana waxaan tegi doonaa file, deetana waxaad dooran doontaa export markaad dooratid export for screen ayaad ku dhufan doontaa. Deetana qaybta haddii range ku qoran tahay waad ka qaadaysaa. Waxaad dooran doontaa marka all baad dooran doontaa. Qaybtan waxaan ka dooran doonaa binary resolution. Qaybtan waxaad ka dooran doontaa JPEG. Way resolution-ka markaa waxaan ka dhigi doonaa 300. Way 300 markaad siisid waxaad leedahay markaa save aad leedahay. Halkana waxaad soo dooran doontaa folderkii waxaad uga bixi doontaa. Okay, waxaan dhigan doonaa documentigaasaan dhigan. Halkaas waxaan ula bixi doonaa midab same. Way midab same leeyahay. Midab same markaan siiyo select ayaan siinayaa marka folder. Select folder markaan siiyo export ayaan siinayaa artboard. Marka artboard kan keliya ayaa lagu export garaynayaa.
waayahay kaa marka lainoo export garaya haddana dib baan ugu noqon doonaa fail baan tegi doonaa export ayaan siin doonaa export qaybtan haddana kasii dooran doonaay waxaan ku save garayn doonaa isagoo png ah waaye isagoo png ayaan dooran doonaa deetana isagana waxaan leeyahay export ayaan siinay isagana saasa ayaan ugu export garaynaya intaa markaan dhameeyo waxaan tegi doonaa haddana file isagoo waxa weeyaan waayahay isagoo for template ah baan xawlan doonaa waxaan dooran doonaa save as copy ayaan ku dhufan save as copy markaan ku dhufto qaybta ii soo baxday waxaan tegi doonaa folderkii aan soo samaystay waaye folderkii markaan doorto qaybta waaye AI-ga ah ayaad isagana save leedahay sida awgeed haddii midabsame soo furno waxaan qaybtan soo dooranno waaye qaybtana save ayaan leeyahay waa inuu markaa qaybtan soo galaa waaye isagoo AI ah ama isagoo template ana waa kad waayahay saddexdaa qaybood markaad usoo save garaysid saasay lagu kugu dhammaystiran tahay qaybtii koobaad haynoo noqoto assalaamu calaykum